wararka ku aadan sidii maamul goboleedyo loogu sameyn lahaa gobolada koonfureed ee Soomaaliya ayaa arrinkaasi waxa ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada qaranka Cabdullaahi Cabdi Garuun oo ah gudoomiyaha xildhibaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay xilligan inay socoto qabanqaabo ama qorshayaal la doonayo sidii loo magacaabi lahaa maamul loogu magac daray koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaana uu tilmaamay in arrintaasi ay tahay mid ay gabaanba iyagu soo dhaweynayaan gudoomiyaha baarlamaanka federaalka dawladda Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madow oo isaguna ka hadlay maamulka lagu magacaabo koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xilligan ay tahay mid lagu soo degdegay in maamul loo sameeyo koonfur galbeed ee Soomaaliya maadaama uu tilmaamay dawladda haatan ka jirta dalka Soomaaliya lagu soo dhisay meel ka baxsan Soomaaliya sidaas darteedna loo baahan yahay hadii maamul goboleed la sameeyo in lagu soo doorto deegaanada ay markaasi doonayaan in maamulkaasi uu ka dhaqan galo mabda'iyan horta waa dastuuri in maaragtay maamul goboleed la sameeyo dawladda federaalka inay maamul goboleed dalka u sameeyso waa heshiiskii ummadda Soomaaliyeed ay ku soo heshiisay caalamkii ummadda Soomaaliyeed ay naga sugayaan in dawlad goboleedyo la dhiso ayadoo lagu saleynayo rabitaanka shacabka gobolada sida ay isu raaci karaan ayada oo maaragtay tala badan ay ku leeyihiin shacabka deegaanada degan iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan marka runtii aniga arrintaas dadkii heshiiskaas hormuudku ka ahaa in federal system la qaato dawlad goboleedyada dalka loo dhiso haddana saasaan aaminsanahay yani si Soomaaliya u noqoto dal degan yani maamulkiisa ilaa hoos u fadsan yahay oo aan hayn maadaama dawladda maaragtay maamulkooda hal meel ku soo urursan yahay laakiin waxa ka horeeya in shacabigii deegaanka iska lahaa ama dalka iska lahaa ay xur noqdaan dalkii waxa haysta dad ajnabi ah oo wiilasheenina qaarkood shaqaale ka dhigtay ayaa haysta marka waxaan arkayaa dhowr meelood oo la leeyahay anagu wax dhisada u fadhina anagana wax dhisada u fadhina hal tuulo oo dalkii ka mid ah dadkii ma tagi karaan siyaasiyiintii iyo dadkii wax garadka dalka ka carreen culimada diinki kullu waa ka carreen maartay dadkii wax yaqaanay iyo dadkii maartay macruufka ah dalkii talada dalka ku ilaahay waa ka carreen maanta ilmi ayaa ku soo haray dalkii marka dawladda dhaxal dibadda lagu soo dhisay waxaan ma suurtagelayso dawlad goboleed in dibadda lagu soo dhiso dawlad goboleed waxa la rabaa deegaanka inay ka soo qeybanaan haweenka iyo caruurta inay gorjooga aadaan qabanaysoo ku dhisayo si yani lagu dhax dhiso magaalooyinka la rabo si yani rabitaanka shacabka maaragtay arrintaas ugu salaysanaato Nuur Geesay